madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo ay ku maamuuseen madaxda iyo bulshada Galmudug ayaa ka warbixiyay mudnaanta uu siinayo daadejinta adeegyada dawladda, adkeynta dimuqraadiyadda dalka iyo dib u heshiisiinta shacbiga Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee dib u dhigay nolosha shacbiga Soomaaliyeed ay tahay amni darrada iyo falalka arxan darrada ah ee ay soo maleegaan al-shabaab, isagoo soo bandhigay sida shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladduba ay maanta ugu taagan yihiin in ay wadajir ugu xoreeyaan dalka. Madaxweynaha waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladdu ay bilaabi doonto guluf ka dhan ah al-shabaab si dadka Soomaaliyeed loogu xoreeyo. Sidaa daraaddeed waxa uu Galmudug ugu baaqay in ay hormuud ka noqoto qorshahaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay madaxda dawladda iyo dadka Galmudug in ay ka digtoonaadaan khilaafaadka, qulubtuna ay isku furaan oo ay gacmaha isqabsadaan si ay horumar buuxa ay ugu hirgeliyaan deegaanadooda, nolol wanaagsanna ay ugu abuuraan ubadkooda. diintooda inaan ka shaqeeyo waxa ugu horeeyo udana dadkan waxay yahay irsaaqada qofka uu cunayahay Ilaahay ayaa kafaalad qaaday, laakiin muwaadinka Soomaaliyeed caawa gurigiisa inuu nabad ku gam'aan rabnaa. nimanka nabadiidka ah ee ummadan hooyasho iyo hergalaadba u diiday inaan dalkaan meel ka saarnaan rabnaa. waxaan meel uga saari karnaa in aan qulubteeda isku xirno oo aan hal dhinac ka soo jeeso. qoryo kaliya ugama saari karo. maxaa naga maqan sida hadaanta looga dhawaajiyo odaga reerku inuu na horkaco, deegaanada uu nagu horkaco, ciidanka qalabka sida uu horkaco, oo degmo kasta uu tira reer quraxmanaay haa yaa shabaab oo nala joogo hala soo qabto. waxaan rabnaa Galmudug in ay bilowdo mashruuca sifaynta ah. cabsida dadkeena waxa dilaya waaye waa ka saareynaa. dadkuna waxaan leeyahay cabsanina. maalintaad dhima laheed waa dhimane, ama shabaab ha ku dilo ama maxaa kanaaca ha ku disho, malaria kugu dhacdee ama corona kugu dhace, waa dhimane. saacadna lama soo hormarinayo ajashaada, saacadna dib looma dhigayo, waana qowlka Ilaahay. marka maalintaad dhima laheed dhimane, dhiiranaana kaa maqan. dhiiranaan xumo yaanay wax kugu seegin, xurriyad yaanay kugu seegin, qabkaagu yaanu ku jabin, diintaada yaanay ku ciladoobin. waxaa soo hartay markaan u soo noqdo kaftanka caawa halkan ka dhacay. annagu dalkan inuu dal dimuqraadi aan noqdaan rabnaa. dimuqraadiyadduna isbedbedelay ku timaadaa. gabdhaheenna iyo wiilasheenna fanaaniinta iyo abwaaniinteenna waxaan rabaa iska joog yaanayna dhehen, oo haddii kale waa dhumayna haddaan inaan iska joogno damacnee iskama joogi karno. anna joogi ma karo, qoorqoorna joogi ma kareen. muddaan leenahay, muddadeena si fiican ha nolola shaqeeyo. wax fiican haddaan qabnana ha naloo soo celiyo. inta qaanuunka ogol yahay ha nalagu soo celiyo. inta qaanuunka inta ogolaay mukaan dhamaysanana raalli ahaada socda hana la yidhaahdo. haddii aan wax qabo weynane waxaa waaye idinkuma bogine raalli ahaada, waa dad kalaan dooranayna. dadku waa inay go-aan ka gaaraan qofka taladooda maxaan ku idhaha tawalinaya oo haynaya.